السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لالي وإن السلامي مركلي مقال كلا عصب صبحني ما وناكسن سودو هذا أصحابي waxaan filayaa inaa caafimaad qabtaan meel boodino daafiyada ka joogtaan waxaan idin rajeynayaa caafimaad basashiyo barwaaqa dhammaanteen intii caafimaad qabta allah u siyaasho intii xanuunsan allaha caafiyo intii dhimatayna allah u naxariisto annagana allah subxaana wa tacaala gadaashooda nama fidneeyo soo dhawaada saaka waxaan noo wadaa laba duco oo uu nabigu sheegay qofkii ku duceysta wax walba in ay helayaan labada ducana uu ku jiro bismillaahi al-acdam magaca ilaahay ee weyn uu ku jiro ayaa noo wadaa haddii aad ku duceysatana mushkilad walba iyo xaalad walba oo ku haysata ilaahay subxaana wa tacaala uu kaa qafiifinayo kaa dulqaadayo ilaahayna uu kuu furayo irdaha farajka iyo kheyrka aad doonaysa oo dhan waa muhiim waana wax noo wanaagsan inaan isku baraarujino waxyaabaha anfaca noole adduun iyo aakhirana anfacaya ilaahayna uu raaliga ka yahay magaciisa ugu wanaagsan ducooyinkiisa waxyaabaha ilaahay uu noo soo dejiyay qur-aankiisa inaan maarad ka raadsano farxadda caafimaadka farajka dhammaan wax alla waxaan u baahannahay marka soo dhawaada waa filaa inaad ku farxi doontaan kana heli doontaan insha allah biidnillahi alkariim inta kheyrka jecel dhammaan inta wanaagga jecel oo dhan waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala kheyr hayda siiyo waayo dadku waayahan ma jecla wanaagga khayrka qisaska iyo waxaa ma jecla waxay jecel yihiin keliya niyuuska reakshanada iyo waxyaabaha cusub markaas ee soconaya in la soo gudbiyo waxaana wax waqtiyaba maba u hayno teen ayaa kala gaari laanahay laakiin waxaan mar walba isku dayaynaa wax ka faa'iideyno walaalahana wax u taraya faa'iidana u leh inaan maaragta hadduu alla qadaro aan soo gudbino insha allah qisadan markaa aan soo daayo waxaa noogu xigta qiso kale oo saliga nebiga ah oo qof walba oo maanta family problem oo haysto uu ku dhiiran doono saliga nebigan uu aqsan doono laasiman doono gabar uu ku soo aaday nin aan wanaagsanayn iyo macal familigiisa oo gabadha u wada wanaagsanayn oo markii dhinac laga fiirshan dhammaantoodba aan wanaagsanayn dabadeedna allah subxaana wa tacaala gabadhaas sabab uu uga dhigay inay wada toosaan inay wada wanaagsanaadaan inay dad ahlu diin ah wada noqdaan maasha allah marka waa wax wanaagsan oo lagu farxo qisooyinka noocaasana waa loo baahay in dadka lagu dhex faafiyo leeslana wadaago marka soo dhawaado walaalihiga qaaliga waxaan daawanaynaa insha allah labadan duco oo sheekh culimadeena ka mid ah oo noo soo jeedinayo aan ka faa'iideysano si wanaagsan aan u daawano walaalaha kale ee u baahan ee aan ogeyn wanaag aan haysanana walaalayaal ha loo soo gudbiyo oo ha la gaarsiiyo waxay kula tahay adiga maanta nimcad aad haysato qof aan ogeyn inaysan jirin laakiin dad badan oo nimcada adiga aad haysta aan ogeyn ayaa jira dad badan oo khayrka iyo macaankiisa ka daahan yahay ayaa jira dad badan oo maanta murugo iyo qami iyo dhibaato meel ku haysato aan ogeyn waxa agtooda yaala ayaa jira marka sifa ay u ogaadaan mar walbaba aan u sheergareyno aan u gudbino si ay uga faa'iideystaan hadduu ilaahay subxaana wa tacaala uu qadaro ajir baad ku leedahay adigii gudbiye iyo anigii soo daayay labaduba ajir baan ku leenahay maasha allah markaan sheergareyno oo aan gaarsiino walaalaha u baahan dikrigan hadduu alla qadaro marka soo dhawaada wasla daawanaynaa ka faa'iideysan insha allah biidnillahi alkariim waxaan ku daray intaan qisada u guda gelin gabar baa maalin i weydiistay lambarka abudal xasan idin sheegay shalay video aan soo daayana gabar baa igu tiri hawari aniga lambarkiisa garanayaa waxaan kugu soo dirayaa whatsappka gabadhaas waxaan rajeynaa inay soo dirto si gabadhii isoo wacday ee sheekha u baahnayd ay u hesho hadduu ilaah subxaana wa tacaala uu qadaro aan ugu gudbino biidnillahi alkariim walaalo badan oo u baahanaa jira runtii culummada kalama dhacaan maasha allah sheekh markaad soo gudbtay lambarkiisa lagu weydiinayaa intuu joogaa magaciisa ayaa lagu leeyahay culimmadeena maasha allah ilaahay ha noo daayo waa indhaha nuurkooda waa dadka ahlu cilmiga waa dadka maanta aan maaragtay xaqa iyo baadilka noo kala saaraya ilaahay kheyr ha siiyaan leen dhammaantooda marka soo dhawaada aan labadan kaliiba aadka u cajiib ama labadan duco oo aadka u cajiibka ah aan dhageysano insha allah aana ka faa'iideysano hadduu ilaahay qadaro weyn ee qofkii ilaahay ku barya ama wax ku weydiista ilaahay uu siiyo tabaaraka wa tacaala waa xaqiiqa haddaad ilaahay ku barida magacaan alla wuu aqbalaa mana soo celiya ducadaas wuuna kaa ajiibayaa ducada aan fiirino marka magaca ilaahay ee weyn waa kee marka koowaad waxaad ogaataan magacyada ilaahay oo dhan
ومقعية واوين ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إلهي وحليه مقعية وناكسن كبرية وحقال ليه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى أما وحاد كبر دان الله أما وحاد كبر دان رحمن مقع كستوء كبر دان وحاد أغاتا إلهي وحليه مقعيه وناكسن موليه marka magac kasto ilaahay waa magac weyn magac kasto ilaahayna waa magac fiican laakiin waxaan isweydiinaynaa magaca si khaas ah nabigu uu u sheegay sallallahu alayhi wasallam in la yiraahdo ismullahi al-a'zam ee ducada lagu aqbalo waa kee kaliya gacmaha inaad taagatid oo aad magacaas alla ku xustid ducadaada oo dhan waa la aqbalayaa danahaaga oo dhan waa la gudayaa kurbadaada oo dhan alla wuu faydayaa xawaa'ijtaada oo dhan الله وأقبلها اسمي مقعاسي واكي لبا حديث أيان دين شيقيا والله بضبا وحا كجرة مقع والنبي يجري صلى الله عليه وسلم واسم الله الأعظم لبضاس مقع أيو اسم الله الأعظم كما بحثناه يكون آفن يا حديث كهراء حديث كبريدة بن حصيب يا حديث كان وحاوريي الإمام ترمذي أبو داود ابن ماجه وحديث صحيحة وحويري نبي صلى الله عليه وسلم أيا وحوم مقلي من دعي سنية وضعها اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مقصود النبي صلى الله عليه وسلم وحد كوي دي ستي الله مجعي سوين هدي وحلقو بريو وأجيبه هدي وحلقو ويديستانا وصية الله تبارك وتعالى مقعا وامحا مركا مقعا وحوي ودعاء انت سوي اللهم إني أشهد أنك أنت الله إلهي وحان قريا أذو إناتها الله إناتها لا إله إلا أنت متك كلية أصدق حق لغو عابدو متك لو حق لغو عابدو مجرو الأحد الصمد وحتى متك كلية هدنا صمد هدنا أصدق الله شيكتو حوائجت الله كريالو المخلوقات كدن أي كتير سيهين لم يلد ولم يولد ملغو دالين وحتى الله متك آن لدالين أصدقنا آن وحبت دالين ولم يكن له كفوا أحد كفوا أو أدقما سيدا حاس أو كلانا آن لهين دعاء الله بعد وحوالي وحوليه أنس بن مالك نبي كان لجوه صلى الله عليه وسلم نبا تكنيي مركاسو دعيستينينكي أو حيري اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم قاسو النبي صلى الله عليه وسلم وحكوي ديستي ألا مقعي سوين هدي وحلقوي ديستو وسيو هدي اللقو بريانا وكأقبله وامحي دعاءنا وحوية اللهم إني أسألك إله وحنكوي ديستي بأن لك الحمد هورتا مهاب أوردن إني أذيك كوسوناتي لا إله إلا أنت الله حق لو عابدون أذيك أهين مجرو المنان وحتى الله أصوح منيستا أو حق الله ديستا أو حبيحية بديع السماوات والأرض متك السماء يقولك وأصو باللعبي يا أبوري يا ذا الجلال والإكرام الله وينك إيا الشرفت وصاحبه الله الداقضة وصاحبك ديقسي يا حي يا قيوم الله حي إيها نول يا قيوم كإيها مخلوقي سأتاغن مركزته إنه كأقبله دعاء يدانه هذا أقوده همين إيا مالين صبح إيا قرب فيد إيا السحور ساعات كسته دقيقة كسته سكن كسته حالة كسته كجرته الله أتاغن مخلوق يس أمورته إنه قدو لما دان دعو هذا أفرستان مقع الله بقوة ذجرة وذلك وحي علماء ليهن اسم الله الأعظم سيدة أحاديثنا أي شيئا ومقع الله وحو قرآن كيمد مقع الله إلهي مقع أؤه وحو كيمد لبكن لحبقل يسقاشا يتضومر أصدق اللهم أنا وحو كيمد شمر تسوى والله واي
marka ku dadaal allah ducada uu ku jiro inaad ku ducaysatid ducada labaad waxaa ku jira yaa xayu yaa qayuum xadiidkoo nabigu waxaa jira sal alla sl xasan oo uu leeyahay magaca ilaahay ee weyn wuxuu ku jiraa 3 suuradood suuratu albaqara iyo suuratu aali cimraan iyo suuratu taaha nabigu saas sal alla alay salam suuratu maryama suuratu baqara wuxuu kaga jiraa allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum aayad ku sida suuratu aali cimraanna wuxuu kaga jiraa allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum waa bilowga suuradda suuratu taahana wuxuu kaga jiraa wacanat alwujuuhu lilxayi alqayuum markaad ducaysanaysid walaalle waxaad bishaan ramadaan ku dadaashaa ducadaada inaad mar walba ku dartid labadan duco markay xaaja ku hayso markay dan ku haysato markay kurba ku haysto marka aad damac ku hayo marka aad rabto inaad wax hesho marka aad rabto ducadaada in la aqbalo wax ka weyn alla ma jiro labadan magac ku ducayso ducadaada waa garanti in la aqbalaya xaqiiqo weeye midda hore waa maxay waa ducada hore allah ay ku jirto oo ah allahumma innii ashhadu annaka anta allah laa ilaaha ilaa ant alaxad asamad alladii lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan axad midda labaadna waa yaa xayu yaa qayuum ducaday ku jirto allahuma innii as'aluka bianna laka alxamd laa ilaaha ilaa anta almanaan badiicu asamaawaati waalard yaa da aljalaali waalikraam yaa xayu yaa qayuum waxaan inaga dhan insha allah niyada ku dhisanaynaa oo niyadeenna aan ka buuxinaynaa inaan gacmaha taagano oo ducadeenna alla aqbalo maasha allah waxaan u maleynayaa waa ka faa'iidaysateen walaalahayga qaaliga ilaahay hanagu anfaco hana naga dhiga kuwii ka faa'iidaysta mar walbaba aan usii gudbino walaalaha khayrka jecel dhammaan maanta maaragta laga yaabo inaysan waxba ka ogeyn nimcadan aan haysano walaha qofku markuu maasha allah dikri leeyahay salaatuleyl tukanaayo uu yahay qof cibaado leh wax ka fiican ma laha in la isku baraarujiyo wanaaga oo la isgaarsiiyo oo la isku naxariisto ayaa la rabaa oo walaalkaaga maanta aan haysan nimcada aad haysato aad ugaga faa'iideyso aad u sheer garaydo gurubyada aad dhigto si ay uga faa'iideystaan walaalaha khayrka maasha allah dad badan oo waxaa maanta jira aad u wanaagsan oo aad u fahmay dikriga iyo macaanka uu leeyahay kana faa'iideysta ahlu dikri ah maanta maasha allah nimcada ay haystaan walaalahooda la qaybsada iyo dad badan oo maanta cid wax gaarsiida aan jirin way jiraan oo maanta waxaan wanaaga aan haysano aan ogeyn marka walaalahayga qaaliga soo dhawaada subaxnimo wanaagsan ilaahay caafimaad baan nooga rajeynaya dhammaanteen cimri dheer cibaado suuban leh oon ku cibaadaysano allah subxaana watacaalana aan ku caabudno ayaan ilaah weydiisanaynaa maalinta teeno ay maatan ilaahay inuu noo naxariisto oo uu afka noo saaro tawxiidka jannadii firdowsana oo nagu irsaaqan rabbi ka rajeynayna anagoo faraxsan la kulanka alla ku faraxso dugana ka tagna ilaahay ka rajeynayna insha allah soo dhawaada marka subaxnimo wanaag assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu